قايا باسمها قرنكنا ركابو كقيويان ودين كاركابنا وقرنكا قرنكا قوة قصمي كرايا يوحو ليا يقايا يوحو ليا يقايا باسمها قرنكنا ركابو كقيويان ودين كاركابنا وقرنكا komishanka doorashooyinka qaranka waxaa u farxada inay maanta soo gabagabaynayaan socod dheer oo loo soo maray in la helo doorasho xor ah oo xalaala oo cadaalad ku dhacda waxaa taa nisbaynaya halkaanu ka soo bilownay 3 sannadood ka hor ee ahayd in la sameeyo system ama la sameeyo maamul aan la khiyaamayn karayn aan la qaldi karayn aan waxba lagu samayn karayn oo ah system ugu horeeya adduunka maanta Somaliland noqday number 1 waa systemkii aynu isha buudeeda ku sawirnay qof kastoo isdiiwaan geliyay kaasoo ah inay tahay inaanu doonaynay oo aanu baadhaynay oo aanu awood iyo caqli iyo cilmiba gelinay inaynu helno system 3 xisbi aanay ku murmin haddaan wax kale loo jeedin waxaynu samaynay maanta qof kasta ishiisa ma masixi karo liij kuma samayn karo ma awdi karo kaasaa idin hor yaalla muwaadiniinta Somaliland waxaa markaa idin caddayna in aynu systemkan aynu wadanaa systemyadii hore haddaynu qaldi jirnay oo dadweynaha had iyo goor qaladka keena waa halkay ka lahayd kaltuun waxaa noo yimaada intaasoo qof oo qofba uu wato system uu doonayo inuu ku khiyaameeyo waxaanu idiin samaynay waanu qabannay waad ogtihiin waxaanu liyaan la isdiiwaan gelin 2 goor hal mar buu qofku xaq u leeyahay codkana wuxuu leeyahay farta hal mar kuwiina diiday waad ogtihiin qaarna inay xidhan yihiin qaar ku daba jirno oo aanad systemka laga baxsan karayn taas waa ta komishanka doorashooyinka waxa maanta aanu daa furaynaa ugu dambayntii 2 gobol ee ugu dambeeyay oo ah Sanaag iyo Sool hadda aynu joogno oo caasimadii joogno ayaynu daa furaynaa labaduba baaral bay u socdaan saaxiibadayo halkaas iyaguna maanta ka hadlayaan qeerigaabo waxaan ilaahay ugu mahadnaqaynaa ilaahay noo suurto geliyay inaynu soo soconno 3 sannadood oo aynu gamcaha haysanno xisbiyadu la siiyeen damaanadooda la siiyeen xisbiyadu ilaa hadda ay nagu kalsoon yihiin taasna aanu ku kasbannay inaanu noqonno dad furfuran dad ku adag qaanuunka iyo sharciga dad doonaya dalkanu inuu halkii ka sii hormaro oo ay u dhacdo doorasho xora oo xalaala oo hal qof iyo hal coda waxaanu joognaa jaamacaddii Nugaal waxaanu fulinay ballanqaad maalintaanu nimi halkaa aanu ballan qaadnay oo ahayd gobol kasta shaqaalihiisa gaadiidkiisa aqoon-yahankiisa isagaan ka qaadanaynaa walilaahi alxamd maanta waa noo markhaati gudoomiyaha jaamacadda Nugaal Cabdirasaaq waa noo markhaati shaqaalaanu halkaa ka qaadanay jaamacaddan ay ka baxeen waa ballanqaadkii aanu fulinay ahayd 6 gobol baynaanu cadaalad u farno cadaalad halkaasaanu ka bilownay gobol looga soo qaaday shaqaalihiisa maanta ma jiro
intiina badan ee halkan fadhidaa ee siyaasiyiintii waad ogtihiin doorashooyinkii afarta ahaa ama shanta ahaa ee naga horreeyey in hargeysiyo meel u dhow laga soo qaadi jiray gaadiidka laga soo qaadi jiray shaqaalaha laga soo qaadi jiray aqoon-yahanka maanta gobol kasta waanu deegaamaynay waa cadaalad koow waxaan u mahadnaqayaa ardayda ka baxday ama ku jirta gobolkan sool jaamacadda nugaal ee muddadii aanu wada joognay sida xilkasnimada ah wakhtiga ay u ilaalinayeen duruustii aanu siinaynay ama trainingkii ay qaadanayeen ay u fahmeen ay ugu heeganka yihiin ugu daacadda yihiin u jecel yihiin inay iyagoo hablo iyo nababa ah ay ka baxaan guryihii hooyooyinkood iyo aabbayaashood markii ugu horraysay u baxaan miyi taasuna farxad bay noo tahay iyagana waanu mahadnaqaynaa waananu ducaynaynaa waxaanu leenahaynaa innakoo nabada iyo idinkoo nabadaynu isu soo noqon insha allah biidnillaahi kariim shaqadaa qarankana soo gutay waxaan halkan mahadu celinayaa ama u jeedinayaa ciidanka qaranka somalilan oo 6 gobol aynu ka soo shaqaynayba abaalkooda aananu gudi karin shaqaday noo qabteen sidai heegan noogu yihiin siday qaranka nabadgelyadiisa u ilaalinayaan annagoo aan kala saarayn 4 ciidan qaranba waad ku mahadsantihiin waanaad mutaysateen in laydin mahadnaqo waxaanu anigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan komishinka doorashooyinka qaranku uu mahad u celinayaa dadweynaha degan gobolka sool khaas ahaan laascaanood waa markii labaadaanu nimaadno sidaad noo soo dhowayseen sidaad noo bartisaorteen sidaad noga jeceshihiin sida aan u aragno inaanayduna jibdiidayn ee aadna soo dhowayseen shaqada aanu wadnayna iyo waxaanu idinka baahnana aad si dowladda dhistoona waxaa laga rabaa koow inay ummadda somaliland qalbigooda midayso is-aaminto inanka ama inanta jaamacadda ka baxday ee somaliland ee laascaanood ku dhalatay ay ka shaqayn karto ama uu degi karo oo uu aaminsanaan karo sayrac iyo bowrame iyo hargeysa iyo ceerigaabo iyo baran isaga oo aan dareemin gobolkaas ku dhalatay iyo qoladee tahay iyo xaggeed ka timid iyo aabbahaayuu ahaa iyo hooyadaayay ahayd maabtaan ku ahay maadeerbaan ku ahay isagoon midna garab qabanin aqoontiisa iyo kartidiisa inuu muwaadin kasta oo somaliland meeshuu gaari karo ee awood sugaarsi karta uu gaaro isagoo xora oo aan cidna u habranayn soo socodka dowladda aynu doonaynaa waa inay taa hirgelisaa iyo doorashada aynu gelaynaa doorashada aynu gelaynaa waa inay dadka somaliland aaminsanaadaan isagoo muwaadinah inay dowladdiisu ka saarto dhibaatooyinka dhaqaale ee cuqaasheenna culayska weyn ku haysa maanta culayska ugu weynaa laga rabay dowlad wuxuu ku dhacaa nimo laydhaha cuqaasha oo kadeedan oo hawsha u badan la saaray gaadhaa qallib maaya 20 baa ku dhimanaya oday caaqilaa la odhanaya darawalkaa qoladaada ahaa gaadhiga reerkiina ahaa magtii soo ururi mid bana kacay oo xoolay ka dhammaadeen oo xaalkiisa alleegoon baa la odhanaya magta intaa leeg bixi waayo ma jiro insurance baabuurtan baabuurku qola ma aha dhaqankeennina kumuu jirin waa technology soo korodhay waxaa loo baahanya marka gaariga la iibinayo inay la socoto hawlihiisa inuu lahaado insurance ama badbaado ay dowladda gacanta ku hayso oo dadka culayska ka qaada waxaynu u baahanay inaynu abuuro dhaqaale iyo dowlad ka saarta odayaasha cuqaasha ah iyo reeraha culayska saaran ee ah markuu reerkii soo barakaco ama agoomoobo ama aqalku ka gubto ama dhibaata dhacdana ayaa tahay ree hebel oo tagdaa caaqilkaaga isma yarban waxaanu baahnay dowladda taa kafaalo qaadan lahayd oo aynu dhaqaalaha qaranka ee taajirku hayo iyo dhaqaalaha qaranka ee ka shaqeeya hay'adda bar laga qaado si ay diintu u dhigayso in dadka laysu jiido ay dowladdu ka dulqaada culayska reeraha iyagoo tabaalaha ah oo loo helo dowladdii qaban lahayd in qofka tabaaloobay muwaadinkii uu dowladda weerto waxaynu u baahannahay inaynu ka baxno mashkaladda qofkii bukoodaba inagoon itaalba haynin indii ha loo qaado lacagta indii aynu ugu qaadno wax
naga baxda sanadka haddaynu xisaabinno waxaynu ku kari kar lahayn in dhakhaatiirta indiya joogta ee specialistka ah iyo qalabkoodaba aynu soo gadano somalilan keenno waa markaynu waxayna isu gaysano aynaa qof ahaan u soconno doorashada aynu doonaynaa waa taa inay inoo hirgelisa iyo kaarkaynu qaadanayna waxaynu u baahannahay kaarkaynu qaadanayno codkaynu bixinaynaa inuu inoo keeno 7 sano waxaynu kala nolnaa innaga iyo muqdisho somalilan 1960 dowladnimo qaatay oo isku mid ah ma nabcin soomaali ma nabcin dadkeena soomaali wada wanahay dadna waa isu xignaa laakiin danti maanta isku maalin fariintayda koowaad waxa weeye dhammaan shacbiga reer Somaliland ee ku nool Sool iyo Sanaag ee isdiiwaangeliyey in maanta fursadda aanay dayicin ay qaataan kaararka codbixinta kuwaasoo siinaya fursadda ah inay codeeyaan oo cidda ay rabaan iyagu marka ay ku doortaan waa ku adkaynaya dhammaan shacbiga inaanay fursaddaasi iska dayin talabaad waa soo gaabin doonaa hadalkayga xisbiga kulmiya ee talada haya inay waxoogaa iska faanaan oo u ogolahay waayo xukunkay hayaan mashaariicda ay sheegeen ay ka mid yihiin iskuulka boardingka iyo dhakhtarka iyo waddooyinka intooda badan waxaa lagu dhisay kaalmada aynu ka helay dibadda laakiin maadaama ay xukunka hayaan SSDF baa ka mid ah sanduuqa horumarinta Somaliland USAID baa ka mid ah SDF Somaliland Development Fund laakiin de wala u sheegaan shacbiga inaan mashaariicda horumarineyn iyo kalaynu nahay iyo qoladaynu wada dhalay iyo kana wax naga dhaxeeyaan aynu ka gudubnay oo maanta danteena siyaasadeed danteena bulshanimo danteena dhinac walba qarannimo meesha ay ku jirto aynu garanay oo aynu maanta aynu garanay baan aad iyo aad ugu faraxsanahay waa wax ilaahay loogu mahadnaqo in aynu maanta halkan joogno oo aynu danaheennii iyo siyaasaddeennii iyo danteenna wuxuu adeegayay aynu ku koobannahay aynu ka baxnay tusaale haddaad u qaadato aynu ka baxnay ubadnimadii sida ay uga baxeen nimanka la yidhaaho muxuu ahaa maxay tahay kilinka shanaad nimankaas siday u tashadeen aynu maanta ka baxnay waxa aan qiimaha lahayn iyo waxaynaan meel ku gaadhayn waa wax aad ilaahay loogu mahadnaqo taas waa iga taa ta kale sidaa la wada sheegay waxaa halka loo yimi kaar qaadashadii inkastoo bulshadeenna aynu ognahay oo tiro aad u kooban marka la eego populationka dalkan ku nool populationka deegaanada tan iyo inta la xidhiidhaa joogta percentage-ka aynu ka qaadannay marka la eego waa aad u kooban yahay haddana waxay tusaale u tahay tirada kaarka qaadatay tirada isdiiwaan gelisay iyo sida ay ka muuqata dadkeenna inay ugu heelan yihiin wixii iminka ka dambeeyana inay qaataan inta harsan waxay tusaysaa bisaylka aynu gaadhnay iyo sida aynu danteenna u aragnay waxaan markaa aniguna sidaa loogu dhawaaqay aan ku dhiirigelinayaa bulshada oo ugu baaqayaa in bal tiro yarba awalba isdiiwaan gelisay tiradaa yar inaanay kala hadhin ay wada qaadato kaarka oo aynu kulligeen mid kaarka isdiiwaan geliyo midaan isdiiwaan gelinba aynu halgan u wada gallo dagaal u wada gallo bal intii yarayda isdiiwaan gelisay inay kaarkii qaadato oo ay codayso berita ka maalin in gobolka Sool magaala madaxdeeda Laascaanood aynu maanta joognaa dowladda Somaliland maamulkeedu ku wareegay 9 sanadood waxa gacanta ku hayay magaalada Laascaanood maamulka Puntland Sool maanta halkay marayso waynu aragnaa
beenna laga sheegi maayo faanna maaha muddadaas 9 sannadood ahayd nabadgelyadeedu waa la ogyaysay ahayd waxaa laga yaabaa inay maanta talinayaan rag badan oo wakhtigaa carruur ahaa ama caydi ahaa dad badan oo aan xogaal hayna waa laga yaabaa hadhka galay baa suuqa la isku toogan jiray dalkuna fasax buu iska ahaa 9 sannadood waxay kaga tageen maamulka Puntland maxkamad qabyo ah ayay kaga tageen Somalilandna 10 sannadood bay gacanta ku haysay gobolka Sool caasimadeeda ka bilaabanta marba inay sii korodho ilaa iyo aynu deegaanadii degmooyinkii kalena lagu siqay siqidaas xoog lagu qabsaday iyo xoog lagu haystaa midna maaha rag xoog isku qabsan karaba ma nihin ismana muquunin karo ismana gumaysan karo raggiina dhalay awoyaasheen iyo aabayaasheenna isma muquunin jirin ismana gumaysan jirin waxaynu nahay dad wax wada leh waxay ku timi fikir ah inaynu wax wadaagno waxay ku timi dib u heshiisiin waxay ku timi nabad waxay ku timi muxuu ahaay inaynu isgarwaaqsano oo wax wada qabsanno nabadda maanta gobolka Sool taala waxa waata ka turjumaysa jaamacadda Nugaal ee maanta aynu fadhina halkaa galay iyo 177 goobood oo aynu doonayno oo gobolka Sool ka mid ah inaynu kaar ku qaybino waxay tusaale u tahay 10 sannadood isbeddelka laxaad kale ee gobolkan ka qabsoomay shacbiga gobolka Sool way dadaaleen maanta dhismayaasha hudheelada bilicda iyo camiraanta waynu aragnaa shacbigu wuu dadaalay dowladihii Soomaaliland kala dambeeyayna way dadaaleen dowladii daahir riyaale ka ahayn waxbay qabatay 3 sannadood annaguna 7 sano xukuumadda xisbiga kulmiye madaxweyne Axmed Siiraaye galwadeenka ka yahay 7 sano wax badan baanu qaban wixii aanu qabanayna haddaanu sheeganana faan maaha haddaanu ku celcelinana been maaha muxuu ahaa waa laga yaabaa saacadaha qaarkood in la istafiro weliba marka doorashooyinku ay soo dhawaadaan ee dabaylaha iyo saxansixada doorashadu muuqato waaba la istafiraa gudoomiyaha xisbiga wadani waa mahadsan yahay mudane Cabdiraxmaan waa nin odaya wuxuu waa ogolay inay faanaan faani meeyna rumaan sheegay waxa weeye nabadda gobolka ka muuqata ee maanta ay doonayno in deegaanadaas oo dhan kaar ku qaybino waxa weeye waa midhihii iyo tacabkii wax qabadkii xukuumadda Nugaal oo maanta fadhino oo jaamacadaasi siday tahay sida gudoomiyuhu halkan ka hadlayay iyo waxa uu qabsoomay iyo ardada iyo bahda waxbarashada ka baxay iyo raggii wax ka bartay hablihii inay maanta inaga inoo adeegayaan oo inaga shaqeynayaan diiwaangelintii waa midhihii iyo tacabkii aynu beeranay muddadii 2 sano ugu dambeysay 27 mashruuc baanu ka fulinay gobolka Sool oo kala duwan oo isugu jira ceelal dhismayaal xarun maamul saldhigyo iskuulo waa 2 sano u dambeeyay 3 ka mid ah waxaa maalgeliyay mashruucaas horumarinta sanduuqa Soomaaliland oo ku baxaya lacag ilaa 8 milyan waa mashruuca biyaha ballaarinta magaalada caasimadda Laascaanood oo la doonayo in la macaaneeyo biyahooda waanu doonaynaa inaanu shirkado madax bannaan ku wareejino oo noqdo mashruuc BBA waxaa ka mid ah cusbitaalka magaalada madaxda waxaa ka mid ah dugsiga sare ee boardinka oo ah kuwa Ingiriisku inoo dhisay labadaadba ma sahlanayn in mashaariicdan halkan laga hirgeliyo wax iska yimi oo cirka ka soo dhacayna maaha waxaa loo hawlgalay oo rag badan oo inaga soo horjeeda qarannimadeena iyo horumarkeenu waxaa lagu calaamadiyay gobolkan goob la isku haysto dispute area ma sahlanayn inaanu ku qancino deeq bixiyaasha dowladihii mashruuca inaga caawiyay dowladda Ingiriiska iyo Denmark in halkan laga dhiso dood adag baana dhex martay
oo aad u adag gebagabadii iyo guntiina waanu qancina laascaanood waa magaalo madaxdii waxaan howlo badan ka wada degmooyinka dhinacyada oo laga yaabeen dad badan xogaal ka ahayd gobolka Xaysimaa ka mid ah hadda waxa ka socda mashaariic waaweyn xaruntii maamulka gobolka taliska qaybta booliska xaruntii dawladda hoose maxkamadii afarta mashruuc hadda gebagabo ku dhow waxay maamulkeenu ballaareeno xudun baanu ka furinay kala bayd baanu ka furinay dhakeengaya hadda la bilaabaya waxa soo horumarka la wado umadu way kala jaan qaad horeysay qarankani weyn oo cadaalad hela qaarkoodna ma noqon karo meel sareedo iyo barwaaqo ku nool qaarna ma noqon karaan qaar colaad iyo dhibaato ay ka taagan tahay weyn inamadoodu sinaadaan weyn aqoontoodu sinaato weyn maalgashigoodu sinaado sidoo ku iman karaya nabadu iyada horumar iyada muftax ah haddii nabad laga hirgeliyo gobolkan horumarkuna waa imanaya waxaan aaminsanahay nabadda aynu ku talaabsanay oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala aan ugu mahadnaqayno ugu horeyn mar labaadkana waxgaradkii iyo waayeelkii nabadda ka shaqeeyay ee u guntaday mar saddexaadka ciidamada qaranka oo ah kuwa u dib jiray in badanna u gaadiiday oo ku bogaadinayo inaanay cudud kaliya ahayn yihiin cuqaal aad iyo aad deegaanada la wada saaxiibay si garasho wanaagsan wuxuu wada dhaqan xumo aan laga soo sheegin arrimahaasi waa kuwa dareenka wax bedelay iyo waxqabadkii aanu ka sameynay gobolkan intaas oo la isu geeyay waa waxay noqdeen inay bulshadii niyadooda dhisaan ay horumar ka fikiraan waxaan leeyahay hayaanka dheer ee aynu soo wadnay 10 sano haddaynu nahay reer Somaliland weli meeshaynu doonaynay maynaan gaadhin waxaynu ku xaqiijin karaynaa maanta kaarka la qaybinayo waa qaybaha ugu muhiimsan reer Sool waxaan leeyahay shacbiga bulshada gobolka Sool waxaan leeyahay qaadashada kaarkaasi waa muhiim wuxuu muhiim u yahay oo saameyn ku leeyahay nabadgelyada gobolkan wuxuu saameyn ku leeyahay horumarka wuxuu saameyn ku leeyahay isdhexgalka siyaasaddu saameyn ku leeyahay waxa heli doontaan qadarin iyo qiimeyn inta ka badan xukuumadda talada haysa way idin qiimeynaysaa codkiina eegaysaa marka laga tago cadaaladda iyo lillaahida wax la isugu qabanayo waa la idin tixgelinayaa kuwa xisbiyada dibadda jooga ee wax doonaya way ku xisaabtamayaan waxaan leeyahay kaarkaasi waa codka ku ciil bixi kartaan cidna ku taageeri kartaan cidna ku caawin kartaan cidna ku ciili kartaan naqad iyo amaahba wuu galaa reer Sool waxaan leeyahay codku naqad iyo amaahba wuu leeyahay labadaba wuu leeyahay idin dhuumani kaarka qaata oo saaxiib oo inoo dhex madaxweyne Siilaan yaa ciidamada qaranka xukuma isaga inta gacan yarayaashiisaan kow ka ahay way noo kala soocan tahay inta aan markaanu dhexda nahay iyo marka aanu dhinaca nahay labada barbar markaanu kala nahay markaanu kulmiye nahay iyo markaanu dhexda nahayna waa noo kala soocantay ciidankuna waa inoo dhax haddii lagu badiyo waxa laga yaabaa ereyga dhex noqda haddaan ragga qaarkii u xogayn waxaan isleeyahay malaa ereygaasi mahadcelin iyo bogaadin mooye waajib kuma aha haddii lagu badiyana calaamad su'aal bay soo noqonaysaa dib waxba loo qarinaya waxaan leeyahay iyaguna waa ragga inoo dhaxa ee sanaaduuqda iyo nabadgelyada ilaalinaya inaynu shaashaynana ma aha waxaan leeyahay iyagana waa bogaadinaynaa annagu haddaanu nahay kulmiye shalay waxaanu kaga tagnay talada dalka 80 cod waxaanu nahay kuwa kumaankun kaga tegi kara khibradii waa aragnay waanu leenahay waxaan leeyahay Faysal isaguna waa dhici jiray oo waa ka tegi jiray codad badan buu ku dhici jiray waa ka tegi jiray xisbiga wadanina waxaanu leenahay idinkana waxaan leeyahay wariyaan la doogay waa la doogayaan la daacaroon xeerkaas u baynoo jira
hadalkaa idinku baan idinku soo godaynaa haddaa adkaataanna waa idiin haniyeynaynaa qoori fagaaray ka war sheekootahay haddaannu adkaannana tiinoo haniyeeye baashuna waa inoo kala suntantay aad iyo aad baa u mahadsantahay komishankan aan afkiisa ku hadlayo waxaa sharaf weynu ah inuu laascaanood maanta ku dhammaystirayo diiwaangelintii oy sool iyo sanaag yihiin labadii ugu dambeeyey 6 gobol doorasho ee aynu rumaysannahay haddaba waa kii kala qalan madashu waa taa munaasabaddu waxa weeye diiwaangelintii aad ka dhereegsanaydeen ee soo socotay burca ka bilaabantay sanadkii hore marka ilaa intaa weynu soo soconnay geedi socod adag buu ahaa duruufo badan buu soo maray dhibaatooyin badan baa ka hor yimid carqalado badan baa ka hor yimid falilaahi alxamd wuu dhammaaday guul baynu ku joognaa waynagaa maanta gunaanadayna laascaanoodna joognaa falilaahi alxamd waa diiwaangelinta dhammaystirkeedii oo maxay ah kaar qaadashadii haddaba lu fiirso waa kaar qaadashadii wax alla wax kaloo raacsani ma jiro hadalkayga waan soo gelgeli doonaa taasi waa ta guuday tahay 3 meelood baan ka hadli haddaba kii kala qalan waxaan la hadli 3 xil madaxweyne nimo maagan ee halka ay daba fadhiya waa bulshaweynta gobolka Sool ee milgaha leh ee sharafta leh ee ammaanta mudan ee weligoodba ahaa horseedka wadaninimo iyo wanaag socotaan madaxweynenimo ninkii ilaahay siiyaa heli taa ilaahay baaya ee ciday shacabku u codeeyaan war ma leh waxaynu ku ballannay inaanaan campaign gelin oo inaan campaign durbaan tuban aynu sugno xilligeenu ku ballannay intoo jimcaha haddii ilaahay ka dhigana la kala diro shaqaalaha dhammaan gaadiidka iyo ciidanka ka qaybgeli doona hawl maalmeedkii iyo hawlihii oo dhan waa diyaarsan yihiin hadday tahay kaadharkii oo loo diyaariyo goobahoodii waynu ognahay gobolkani wuxuu leeyahay 177 goobood ayuu leeyahay 177 goobood waa loo diyaariyey kaadharkoodii waa loo xidhxidhay shaqaalihii way diyaarsan yihiin waxaa hadhay oo keliya in la dhigo iyo qofkii xaqa u lahaa inuu yimaado uu qaato kaadhka guud ahaan waxay ka socon doontaa caasimadda laascaanood 7 maalmood oo hore oo ka bilaabmaya 12 bisha sida aan sheegay dhammaan doonana 18 bisha haddana waxaa dib loo bilaabi doonaa 14 maalmood oo la dhigi doona caasimadda markaa waxay isugu iman doona goobihii oo lasoo yareeyey oo lasoo koobay sidii gobollada kale aynu sameeyey waxaan leeyahay shacweynaha gobolka Sool oo shacab aad iyo aad u qiimo badan ah ku dadaala qof kasta inuu qaato kaarkiisii inaynu kaarka qaadano ku dadaala inaynu codkeena muujino waxaanu kaga qayb qaadanaynaa oo ku qiimeynaynaa axsaab haddii la yahay mucaarad haddii la yahay iyo muxaafid haddii la yahay ummadda maxaa loo qabtay sharaf gaaray noo tahay in maanta intaasoo wafuuda oo kala duwan ay magaaladii laascaanood nuugu martan yihiin iyadoo wax dhibiyo wax mushkilad aan jirin waxa weeye waxaan ka soo baxay hargeysaan ka soo baxay waxaan soo maray dariiqa berbera meel kasta waxa yahay calamo dhaadheero oo wadaniyo ee kulmiya waxaan xasuustaa haddaa xawayaanka aragtaan tiri kala samaystaanoo geed bay ku kaajaan calamasadaan والله سي حوالين كبير سميه دبي كلا شيء أنت أنا على ناس على مكة تاعي سوي كلا شيء قاله تاسلا دائما يكون شيء مكان ساي كامبينك أنا برعان كسو هالله برعان كسو كامبين قري ولما كيس أتيت تبداريو هي مكان ساي هي مريتش ما تشوفينه دنقنا ما كنا نعيو نمن علم تشوفه أول لانيو سوي لانيو كشقيان إلا سؤالين سوي عديه أدو يستيديو خاتم يستيد والله هو كان بين قرية شرعي باك صوب حي على شرعي قاس ولا جناحي إنك استخدم العجل جناحي بقى 4 مليون نقط $4 نقطتين محمد حاشاه الله هو من فريق محمد حاشي وأيدي waxay meelaha ay ka socoto magaalada saay ay diiwaangelintu
yaan shan bahal wax ka badan la iman lana kaabeen gareen anu burcaan berigii ka kaabeen gareen oo waxna ka socon ayaan raali ka sameeyey markaan maray caynaba ayay la soo haday guddidii oo gobolku waxay markaa hor nimaadnaa waqtigaa marka cabdiqaadir ka fadhiya waxay maya gaargaarna u shirnaay wax ololay ama jiro waxba ka hormarin oo qolada kale oleynayse waxaan la soo hadlay guddoomiyaha war waxay ololaa socda wixii waxaan yeelahayn ba adaadna burca ka ololeeyay war burca xeer kuma jirin waxa ku jirtay ya xeer cusub baa soo baxay inta aan soo maray marka aynaba ka imi aynaba soo gaaray ilaa tuuladan Samagaab waxaan ka soo tiriyay ilaa 12 xero oo ah barakacayaal intiina halkaas socotay dawladda iyo magaalada Saayid dawladda hore waa labadii kulmiye shalay iyo kulmiye maanta labada xusuubood waxa garan weeyday warbaahaydii daba galan laba booyadoo biyo dadka masaakiinta ku leexda ayaa garan weeyday waxa la ii sheegay ruyada waxay tahay jaale qolada kulmiye inay booyad meesha ka qudbadan iyo urushaysa ay la socotay galay ama horreeyay habad ما أنا أنبي كل شيء أنا إلهي بقول إنه هذا ما لا يقبلني وأنا صدقني بي شلتها أو كبحي ومركي يوريس عن أهلا مرة مركن قالي سلوح سلوح هذا واحد أنا واحد قال مول أنا إنه قعدت ببهينه ترى كلام قال موت إذا ما يكفي إله واحد صعود وحاولوا أنتوا مجال وقولوا أنت واحد هاي كوسموسيك شوبينج ولا حبيبي هو يسوق الحين ولا هذا سيد عبد الله نوصل الحمد لله رب العالمين خير وقول iyo professor ay kharif yani waxaan arkay markaa inay dhul badan dalkeeni degan yihiin ceel biyo male shan iskuul bay leeyihiin oo sanadii ku jiro waxay laba macallimiin la joogo labadii markaan lacagtooda sii kari weynay markaa baan dhunta laga tagay yani waxaan arkay dhul dhan oo inaga tirsan oo dad iyo xoolo bay leeyihiin لكن صعنا في حوالي قولة كمان معرك حوالي وينقى دماده لك حوالي كله كانوا كاسيه ماده ما هينا ما أنت قرشك صورك يمدير عندك كاكو أبا ولا ما هينا أو حقوق قبل ماشي قولة أقول واحد كنت شريت الضوء قولي كنت قوي سباق فديا